mar walba waxaan xero u geliyaa sidii xoolaha, mar walbana waa uu cararayaa. Ciyaalka xaafadda iyo dadka loo badan ayaa ugu yeero daanyeer, taasi oo ugu wacan wejigiisa iyo in uu waqtigiisa ugu badan uu ku qaato duurka isagoo weliba cuna cawska sida xayawaanka kale. Wuxuu dhashay isagoo dadka ka duwan, maskaxiyanna sida carruurta kale wax ma baran karo oo iskuul ma dhigan karo. Haddaba daawadoo la kulan wiilkan adduunka ka yaabiyey. Koonfurta dalka Rwanda waxaa ku nool wiil ay deriska u haystaan in uu yahay daanyeer. Waqtigiisa ugu badan wuxuu ku qaataa duurka wuxuuna cunaa cawska. Helitaankiisana waa arrin adag. Mar walba oo uu arko dad waa uu cararaa. Orodkiisana mid caadi ah ma aha. Waxa aan ku qasbanaanay in aan ka daba orodno si bal aan u wareysanno. Nasiib wanaag hooyadiis ayaa nagu caawisay in aan la hadalno. Waxa ay ku qaadatay hooyadiis 3 saacadood si ay u qabato oo noogu keento. Wax hadal ah oo uu garan ma jiro. Wax luqad ah oo uu fahmina ma jirto. Waxaan isku daynay in aan barno sida dadka loo salaamo. Ciyaalka meeshan mar walba oo ay arkaan way ceyrsadaan. Qof walba waa uu ka cabsadaa. Markuu qof arkana wuu ka cararaa. Zanzimana Eli waxa uu dhashay 1999. Hooyadiis waxa ay sheegaysaa in uu dhashay 5 cunug kadib. 5taasoo kulligood yaraanta ku geeriyooday. Waxay leedahay cunigeeda way jeceshahay wax walba dhaco. Maalinkuu socod bartay ilaa maantana wuu ordaa. Hooyadiis waxay ku qasbanaatay inay samaysato xarig ay ku soo jiido. Zanzimana sida dadka kale uma hadli karo, laakiin maqalkiisa waa caadi. Marka lala hadlo wuxuu tusiyaa calaamado ka tarjumaya in uu wax maqlayo. Wuxuu ku dhashay madax dadka kale kooda aad uga yar. Waxaan islahayn madaxa uu weynaan doonaa laakiin wali waa sidiisi. 5tii cunug ee ka horreysay way dhinteen kulligood iyagoo yaryar. Markuu kan dhashayna waxaan ogaanay in uu yahay nimco ka timid xagga Rabbi, waayo dhaqso ma dhiman sidii kuwii kale. Si aan u ogaano bal inuu wax fahmayo, waxaan u sheegnay hooyada inay wax soo qabo tiraahdo. Wixii loo dirana wuu soo qabtay. Waxaan u caddaatay in uu Zanzimana wax fahmi karo, dhibkiisa kaliya waa hadalka. Hooyada waxay noo sheegtay in markii ay geysay iskoolka lagu dhahay cuniga wax ma baran karo. Sida loo noolaado unbuu baran karaa laakiin caqli uu arday ku noqdo ma hayo. Waxay noo sheegtay in deriska ay u haystaan Zanzimana in uu yahay daanyeer. Taasna mar walba way ka caraysiisaa. Waxaa aad ii xanuujiyay markii ay dilaan oo ay ku qayliyaan iyagoo ku caaya daanyeer. Way arkaan in uu yahay qof, laakiin mar walba in ay dhibaan ayay jecel yihiin. Ciyaalka keliyana ma aha. Markaad aragto qof weyn oo sidaa sameynaya waa arrin xanuunkeeda leh. Iyagoo ceyrsanaya markaan arko dhiigga i kaca oo dhagahan ka raaca. Waxay ula dhaqmaan sida xoolaha kale. Cunitaanka uu cuno cawska ayaa ka dhigaysa dadka in ay rumaysan waayaan in uu yahay qof bilaadan ah. Waxaan la kulannay mid ka mid ah deriska Zanzimana oo mar walba aragtay isagoo cunaya cawska. Dadka lama mid aha. Maanta dhan carar unbuu ku jiraa. Haddii uu qof la joogin wuxuu cunaa cawska. Dadka dhan way ogyihiin taas. Weligeen qof sidaas ah maan arkin. Haddii la qaban waayo duurku galaa oo in la helo arrin sahlan ma aha. Ma jeclo in uu dadka agtooda joogo. Sidaas daraadeed ayuu mar walba u cararaa. Ani laf ahaanteeda waxaan u malayn maskaxdu ka xanuunsan yahay. Hooyada ayaa noo sheegtay nolol maalmeedkooda siduu yahay iyo duruufaha ay la kulmaan maalin walba. Zanzimana cuntada ma jeclo. Waxaad cunto u saari saxan, haddii aad soo laabatana waxaad arki isagoo aan taabanin maalinkaas oo dhan. Wuxuu aad u jecel yahay mooska. Dadna hadduu indhaha saaro caguhu wax ka day, waayo way dhibaan oo way ku qayliyaan. Mar walbana waan ka daba ordaa. Halkii usbuuc waxaa laga yaabaa in aan orodno ilaa 230 kilomitir. Marmar waxaan kaashadaa deriska si ay ila qabtaan. Haddii la raadin waayo Zanzimana iskiisa inuu u imaado lagama yaabo. Nolosha meeshan aad bay u adag tahay. Marka in la helo wax la cuno waa dhib iyo rafaad. Shaqana ma haysto laf ahaanteeda.